waa gabadhu jacaylkeedii ku sameeyey ballan fur waxa uu dhaafiyey gabadhnimadeedii habeenkii 14 February ay ku ballameen inay ismehersadaan ayuu ku casuumay arooskiisa waa dhacdo cajiiba gabadhan ayaa muuqaal ay soo dhigtay barteeda Facebook iyadoo oynaysa waxay ka waramaysaa silacaya saxariirka iyo ballan darrada uu soo mariyay ninkani iyo inuu dhaafiyey gabadhnimadeedii gabadhan ayaan barnaamijkeena maanta aan ku bahqaadnaa qisadeeda bilow ilaa dhammaad hayeeshee daawadaynteena barnaamijka u gudagelin haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka waad u jeclaysi dhammaana hidiya dheeb qaybsatee waxaan jeclaabay tiri muddo ka badan 4 sano ballan iyo axdi ayaanu ku galnay inaan ahaan doono lamaano isku horo wax walba xaqiiqadii ma aan qarsan karo bay tiri jacaylkiisa waqti badan oo qiimo leh baan wada qaadanay qalbigayga wuu hantiyey waa isa siiyey bay tiri dhan walba qalbi ahaan iyo himad ahaan waxaan ku casuumay bay tiri naftayda maadaama uu si indhasarcaad ah ii hantiyey aniga waxaan uga soo go'ay bay tiri gabadhani oynaysaa iyadoo muuqaal ku soo duubtay barteeda Facebook waxaan uga soo go'ay bay tiri ehelkaygii waxaan gaar u noqday isaga aabbahay iyo waalidkooda oo ila damcay rag badan ayaan u diiday isaga awgiis maadaama aanu hayay jacayl xayiya sanado badan ayuu anigay hantiyey anigu aan mar walba isaga gaar u ahaa ballamo badan iyo isku sabir badan kadib markaan kaabiga u soo fariisanay xilligii ballanka mustaqbalkeena iyo inaan iscalfano ayay wax waliba ay isbedeleen haddaba qisada gabadhan daawade ayaa qiso cuduro qaadasho leh fadlan laygaree si gabdho badan ay uga faa'iidaystaan ayna ugu waana qaataan gabadhan hadalkeeda si wadata ayaa waxay tidhi aniga xaggayga waxba iskama aysan bedelin haba yaraatee waxaa mar qura qalbigiisa jeediyey wiilkii aan sanadaha badan u soo go'ay ninkan aan dadkayagii uga soo keli noqday boqorkii aan isaga naawilayay ayaa waan ka xumahay bay tiri run ahaantii indhahayga waad aragtaan kama sheekayn karayo sheekooyinkayaga la xiriira arrinkan caawana waxaa igu kalifay inaan sheekadan ka hadlo waa iyadoo ay tahay 14 February oo habeen kuwa jacaylka isku hayaa wada caweynayaan ilmadu waxay caawa iga qubanaysaa bay tiri gabadhani haddaba aan la wadaago bulshadayda sababtu waxa weeye anigoo dhaawac ka ah qalbiga anigoo dareemayay uurku taalo xanuun badan anigoo waayay ruuxii dhaawacay naftayda qalbigayga gabadhnimadaydii baneeyay booskii aan 4 sano ku haminayay ilmadu waxay caawa iga qubanaysaa bay tiri inaan bulshadayda aan la wadaago waxaan igu dhacay ee sheekadayda sababtu waxa weeye anigoo dhaawac ka ah qalbigayga anigoo dareemayay uurku taalo xanuun badan anigoo waayay ruux dhaawacay naftayda qalbigayga iyo gabadhnimadaydiiba waxa uu baneeyay booskii aan 4 sano ku haminayay inuu iga buuxin doono ayaan caawa arkay isagoo aroos galay isagoo arooskii ku soo beegay 14 February waliba xafladda arooskiisa ayaa ka soo beegmay anigoo qalbigaygu uu isaga ku xardhan yahay gabadhani ayaa sheekadeeda si wada ayaa waxay tiri caawa salaadii cishe kadib ilaa iyo iminka ay tahay saqdii dhexe ee habeenimo ah 12 habeenimo waxaan ku jiraa oohin ilmayn walbahaar ciriiri nololeed iyo silic nafeed haddaba waxaan bulshada Soomaaliyeed rabaa inay si naxariis leh talooyinkooda ii siiyaan ayna igala taliyaan tallaabadii aan ugu dhaqaaqi lahaa halkaan caawa joogo oo xaggayga ka ah quus iyo gabagabadii noloshayda fadlan muuqaalkan gabadhan u laygareeya si bulshada u gaaro looguna duceeyo talo iyo tusaale loo siiyo waxay tiri talooyinkiina ayaan doonayaa si halka caawa aan joogaan xaggayga ka ah quus iyo gabagabadii noloshayda
fadlan ruux walbow qisadayda arkaha ila soo taliyo fariintayda ha la wadaago walaalaha kale si aan talo fiican idinka helo fadlan daawada fariinta gabadhan la wadaag walaalaha kale muuqaalka laygare si uu gaadho bulshada gabadhan oo ah gabadh uu ku dhaqaaqay inankii ay jeclayd ayaa caawa ceshan weyday jacaylkeeda waxayna furka tuurtay kadib markay aragtay arooska wiilkay adduunka ugu jeclayd wiilkay adduunka ka daawanaysay oo 14 February maalinkii jacaylka adduunka ku caasuumay xafladeeda arooska qalbada ayuu jabiyay run ahaantii waxa uu dhaafiyay gabadhnimadeedii waxa uu ku cayaaray nolosheedii qalbiga ayuu ka xaday qalbiga ayuu ka jabiyay qalbigu xaday ayuu haddana jabiyay 14 February ballamo badan iyo heshiisyo badan ay galeen ayuu guud ahaanba ka baxay waxa uu guursaday gabadh kale waxa ay tii markaan arkay ayuu ku yiri wax walba calafka ayaa ka weyn gabadhani ayaa waxay looyeysaa ballamahaasi wax kasta in ehelkeedii ay uga go'day wiilkan inuu dhaafiyay gabadhnimadeedii inay rag badan iyo ehelkeedii iyo qaraabadii iyo cid kastoo ay karaamo iyo sharaf u haysay ay isaga darteed u nacday waayo waxay tiri qalbigayga ayuu hantiyay qalbigayga ayuu qaatay jacaylkiisa waqti badan oo qiimo leh baanu soo wada qaadanay bay tiri qalbigayga ayuu hantiyay waana aan isa siiyay isaga oo naftayda iyo noloshayda ayaan guud ahaanba isaga ayaan u dhiibay dhan walba bay tiri qalbi ahaan iyo himad ahaanba waxaan ku cabsumay naftayda maadaama si indha sarcaad ay hantiyay bay tiri waxaan uga soo go'ay halkaygii waxaan gaar u noqday isaga aabbahay iyo waalidka oo ila damcay rag badan ayaan u diiday isaga awgiis maadaama aan u hayay bay tiri jacayl xadaafa sanado badan ayuu anigay hantiyay bay tiri waqti badan ayuu geliyay si uu qalbigayga u xado anigana aan mar walba isaga gaar u ahaa ballamo badan oo isaga dartii aan u sabri jiray bay tiri markaan kaabiga u soo gaarnay inaanu qalbigayaga iyo lamaanahayaga aanu midayno oo aanu noqono qoys ay xilligii ballanta mustaqbalkeena inaan iscalfano ayay wax walba isbedeleen bay tiri xaggayga waxba iskamay bedelin waayo aniga isaga ayaanba isu dhiibay noloshayda isaga ayaa maamulayay isaga ayaa suu doona ka yeegayay waxaan ka diidaya haba yaraatay maysan jirin run ahaantii indhahayga waad aragtaan bay tiri kama sii sheekayn karayo sheekooyinkayga la xiriira wax badan ayaan qarinayaa wax badan ayaan xeerinayaa caawa waxa igu kalifay sheekadan bay tiri inaan ka hadlo 14 February oo habeenkii kuwa jacaylka isku hayay wada caweynayaan aniguna aan cidla fadhiyo kii muddada badan noloshayda qalbigayga niyadayda iyo guud ahaanba jimsigayga aan u dhiibay ayaa maanta aniga khiyaamiyay bay tiri gabadhani 4 sano ayaan ku haminayay bay tiri haddaba daawada boqto qisadan lay gareeya si uu gaadho bulshada gabadh kastoo Soomaaliyeedna ay ku cuduro qaadato inaan maanta xilligan qarnigan taariikhdan aan aamin aanu jirin gabadhan waxa uu ku sameeyay waxa ka daran waxa uu dhaafiyay gabadhnimadeedii nolosheedii ayuu ku cayaaray qalbigeediina waa u jabiyay waa dareemi kartaa gabadh qalbigeedu jabay sida uu soo noqdaa way ceshan weyday dareenkeeda ay xakameyn kari weyday muuqaalkan ayay iska soo duubtay bal daawo iyadoo oynaysa gabadhani oo weliba ilmadu ay ka hitiqayso run ahaantii waa muuqaal calool xumo leh daawada muuqaalkan la garee una ducee commentiga ugu ducee talana sii gabadhan in ilaahay warwarka walbahaarka iyo ciriiriga nololeed ay xilligan ay dareemayso in ilaahay uu ka dulqaado in ilaahay wiil ka fiican oo ka wanaagsan in ilaahay siiyo oo wix allaala iyo wuxuu ninkaasi ka xumeeyay dib u soo kaba
baad u jeclaysi dhammaan gidiya dheef qaybsateen baad u jeclaysi dhammaan gidiya dheef qaybsateen